بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku soo jirnay barashada software-ka Autodesk AutoCAD. waxaan ku soo jirnay chapter-kii dimension. waxaan soo gaarnay casharkiisa shanaad. darsigan waxaan uga hadli doonaa continue and baseline dimension. dimension wada socdo iyo mid maxaa la yiri baseline leh iyo mid continue ah. insha Allah sharaxaada ayaa si fiican ugu fahmi doonaa. aynu tagno dimension aynu soo doorano markaas soo dimension waxaarta intaan ina dimension samayso intii aad mid u soo qaadi lahayd waxaa dimension intaan ka bilaabo ina halkaas aan ku geeyo anoo helayo dhamaan cabirada spacing u dhaxeeyo meelaha dimension ka warramo. okay haddaba midka koowaad aynu ku bilowno saas cabirka marka heshid inta dhig marka inta dhigtid kadib waxa weeye dooro marka مثلا continue aan ku bilaabo waa kana barta ugu imaanaysa quick meesha ku xigto waaye ilga yarka soo fur waa kana baseline iyo continue then marka continue aan ku bilaabo bas marka active ma ka dhigo waxa weela socotaaba ilaa halkaas ma tagi kara haye waa kana meesha rabaan tago waa kaasa saa u soco marka waa option aad iyo aad muhiimadiisu u wato marka inaad fahamto ayaan rajeynayaa وكاسا أنا أصدقين يعني دمان وحان هلي عبردي dimension كأنا استعمالي continue dimension يعني استعمالي. أوكي عندنا فيرنا baseline أيضا option كلا أو أيضا المهمة دي سوته أينو أرجنا هدوء بيدو وحدرس لي هاي continue dimension اللي جسافر وكنا baseline هالكاس يوصلنا كجرا. أوكي سأقول سما يسمى مركا dimension سوق قبصه اوكي قيبت كوباد عادي أصار انت سام وهسداد ادوك وما شقينايو وعينات مرك كوباد اد صارتا عبرك كوباد الى مشي كوباد وعينات صارتا سامركا او صارت كدي مرك رادسو hadii مثلا هذا فيرنو maxaa dhacayo hadii aan wato aan aado wad soo qaaday dimension-ki saa ayaa u saartay marka saantay kadib aad aaday baseline waxaan ku shaqeynayaan marka saha sameyn waxaad sameeysaa marka koowaad soo qabso dimension-ka marka koowaad horto samee dhigba marka saa u dhigtid intaad mid kala dooni lahayd waxaad sameeysaa inta imow waxaad doortaa marka continue soo aragna sameyn baseline dooro waa ka marka you see kuwa marka socodsi ya waa kuwaas oo isdul fuulayaan ilaa midka ugu dambeeya aad gaartid kadibna escape iska leh waa kaa soo ma joogtid mid kasto waa inuu haysanaa inagoo isticmaalayno waxa loo yaqaano baseline haddii matalan uu kugu yiraahdo masaafada u dhaxaysa labada line d dimension option soo furo modified soo dheh text lines imow marka line ama waa kana spacing you see baseline spacing meeshaas oo kale 0.5 ka dhigo 0.5 ka dhig dan okay dhig oo ku cadaanaya marka waa ku alaamay ku yara ka turqeen yaa soo mujid hadii asleeda wali uu kugu yar yahay highlight wada saar dhida kadib waxa sameeysaa modified 1 mitir ka dhig meeshaas 1 mitir aniga badanaa waxaan isticmaalaa mitir marka waa ujeeda waa kala kacaya يا فهمتي أيان رجينا أنت سيكون كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.